أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. waxaanu ku dhex jirnay bidaayadii tafsiirkii qur-aanka kariimka ahay. waxaanu soo qaadanay 3 cashar. halkaan waxaanu ka bilaabaynaa casharkeeni afaraad ayaa nooga bilaabanaya. waxaana ka soo hadlaynay fadaa'isha qur-aanku iska leeyahay. qur-aanka oo maaragtay la akhriyo iyo qur-aanka la barto, dadka la baro ayaanu maaragtay ku soo dhex jirnay. haddana waxa weeye weli waxaynu ku dhex jirnaa annagoo casharkii afaraad marayna fadaa'ilul qur'aani alkariim ayaanu maaragtay ku dhex jirnaa. xagga axaadiista markii la yidhaahdo waxaanu soo qaadanaynaa haddii alla yidhaahdo xadiis oo isagana maaragtay abu daa-uud uu wariyey, sanadkiisuna uu wanaagsan yahay oo saxiixa. xadiiskaas waxaa laga wariyey saxaabiga la yidhaahdo sahal ibnu mucaad aljuhani. asna aabbihiisa uu ka wariyey, aabbahaasuna isna rasuulka uu ka wariyey calayhi salaatu wasalaam. marka can sahal ibnu mucaad aljuhani رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن وعمل به ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا لو كانت فيكم فما ظنكم بالذي عمل بهذا. صحابي قال لي هذا سهل ابن معاذ الجهني وهؤلاء mucaad waxaa weeye maaragtay mucaad aljuhani oo aabbihiisa waxau dhahay anna rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama qaal, rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu yidhi: man qara'a alqur'aana qur-aanka qofka akhriya wa camila bimaa fiihi oo ku camal fala waxa qur-aanka ku dhex jira. axaadiisa hadda hore aynu usoo qaadanay oo qur-aanka derajada lagu helaayey, ridaha ilaahay lagu helaayey, xadiiskan ayaa qaydaayo qirada kaligeer inaysan waxba taraynin haddaan camalfal ousan jirin ayaa marka xadiiskan laga qaadanayaa. maxaa yeele xadiiskan nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay: man qara'a alqur'aana qur'aanka qofka akhriya wa camila bimaa fiih, qur-aanka waxa ku dhex jirana ku camal fala, awaamirta qur-aanka ku jirta qaata, waxa nawaahiya oo markaa qur-aanka la isaga reebaya ka hara, qur-aanka camal falkiisa uu ahaado. qur-aankii saas oo u akhriyey asaga waa ka gudbayaa. ulbisa waalidaahu yow dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam, waalidiintiisa waxaa loo libisayaa yowma alqiyaamati, qiyaamada maalinteeda taajan taaj ayaa waalidadiisi loo gelayaa. marka hadda xadiiskaas marka qofka hadduu qur-aanka barto oo u akhriyo oo ku camal falo, qur-aanka ajirkiisa iyo sawowgiisa asaga ku ekaan maayo. axaadiistii hore qofka in markaa isaga lagu jaasinaayo ayaanu soo marnay. xadiiskaana waxaa weeye siyaadadatan waa siyaadatu sabti weeyo, waxaa la leeyahay markaasi qur-aanka siyaadada waxaa ziyaada u ah inuu qofka saaxibul qur'aanka uu ka sii gudbo oo markaasi dadki ugu sababta ahay qur-aanka uu gaaro. marka hadda tan xadiiskan asna wuxuu noo caddaynaya camalul kayrka camal uu sameeyey inuu wax kuu anfacayo. maxaa yeele waalidku waxay sabab u yihiin qofkan saaxibul qur'aanka ah, qur-aankaas ou bartay ayay sabab u yihiin. maadaama sabab u yihiinne ayagana ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankaas fadiilada uu leeyahay ayaa alla wax ka siinayaa. taasi marka waxay nagu boorinaysaa
waalidku inuu sabab u noqdo owlaadiisa qur-aanka inuu baro oo uu owlaadiisa qur-aanka uu baro oo uu kula dadaalo ayay markaasayna tusaysaa. arrintaasuna waxa weeye haddii uu sameeyo waa arrin u soo laabanaysa fadaa'isheedu asagay u soo laabanayso. laakiin haddii aan owlaadi qur-aankii aan la barin ee baab adduunya kaliya maaragtay xoogga la saara sida dadku u badan yahay oo qur-aankii la iska yaraysto, hadda waxa weeye qiyaamaha la tegi doonaa xaggee taajkaas laga keeni doonaa. ilaa rasuulku wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam man qara'a alqur'aana wa camila bimaa fiihi ulbisa waalidaahu. waalidadiisa hadda labada waalid oo hadda tasniyadaanu kaliya lagama wadee waalidadiisa waxaa laga wadaa wixii usul ah oo maaragtay ilaa abuuna aadam ayaa soo gelaya. faxayle wa fadlullaahi awsac, fadliga ilaahay aa ka waasacsan. marka nasiib wanaag weeye markaasi dadkii maaragtay furuucdiisa dad wanaagsan oo saalixiin ah oo qur-aankii ilaahay yaqaano akhrinayo ay u galaan, qof nasiib la waayo. dadkaas dad nasiib lahay noqonayaan. labadiisa waalidadiisa waxaa loo libisayaa rasuulku maalinta qiyaamo taajan, taaj ayaa loo gelinayaa. taaj ilaahay uu bixinayo oo aan markaasi waxa weeye adduunyada iyo fara bani aadam iyo waxaas aan lagu samayn weeye. gacan bani aadam laguma samayn, makhluuq gacantiisoo dhanba laguma samaynba. waa taaj ilaahay subxaanahu wa tacaala uu tawaliyo waxyaabihii jannada markaasi raaxadeeda iyo lagu abuuray taaj ka mida waayo. taajkan meesha laga keenayo ilaaha og subxaanahu wa tacaala, laakiin ma ahan wax markaasi makhluuq ou sameeyey oo waxa weeye markaasi meel dawaara ina la geeyey ama maaragtay meel carwaa la suray ee laga soo gadaayo iyo waxaas oo kale maaha. low uu axsanu min law ishamsi ayuu dhaha rasuulku calayhi salaam fii buyuuti dunya. taajkaas haddana waxa weeye masiyada uu iska leeyahay. waxau dhaha rasuulku calayhi salaatu salaam iftiinkiisu wuxuu ka qurux badan yahay iftiinka oo maaragtay qoraxda. waaba ka qoraxda haddii lacalla taajkaas iyo qoraxdan adduunyada aanu hadda joogno iftiinaysa haddii la isu soo barbar dhigo qoraxdaanaaba la nasakhi lahay oo qoraxdaa laga iftiin badnaa lahay, laga qurux badnaa lahay. ilaan jannada waxa yaalla wax laga warrami kara maaha. marka rasuulku waxau dhahay calayhi salaatu salaam taajkaas ayaa loo gelinayaa. markaasuuna waxau dhahay famaa dannukum biladii camila bi haada. haddii hadda waalidki saas la yeelaayo, bal maxaad u malayhaysinoo rasuulku calayhi salaatu salaam qofkii qur-aankaas ku camal falay oo waxa weeye qur-aankii uu gaaray in maaragtay qofkaas waalidkiisi sidaas ilaahay subxaanahu wa tacaala taajkaas ugu geliyo. qofkii arrintaas shaqeeyo arrintaas sababta u ahayna balka warramuu dhahay, wax laga warrami kara maahan waayo. marka derajada markaasi uu gaaraayo famaa dannukum biladii camila bi haada u dhahay. ka warrabou dhahay rasuulku maxaa u malayhiisiina u dhahay qofkii waxaa weeye camila bi haada kan ku camal falay oo qur-aankan maaragtay akhriyey ku camal falay asna see yahay, wax laga warrami kara maahan weye. markaas wax laga hadli karo oo laga sheekaysaayo maba ahan kaas. marka hadda man qara'a alqur'aana wa camila bimaa fiihi u dhaha rasuulku calayhi salaatu salaam. qur-aankii qira oo mujaradkeeda lama rabo, camalfalaa loo baahan yahay. camalfal in la helo ayaa loo baahan yahay. qur-aanku waa dastuur rabbaaniye oo ilaahay subxaanahu wa tacaala koonkaas uu keenay. haddee dastuurka ilaahay haddii laga leexdo oo mid jebinaaya la samaysto oo wax kastoo macaasiyahoo qur-aanku reebay fasaxaaya, taas waxa weeye maaragtay waa halaag iyo musiibo waaye. iyo qur-aanka oo maalinta qiyaamo ku dacweeya ayay tegaysaa. marka qur-aanka qofou dacweeyana wax kaloo laga aqbalayo ma jirto. salaad laga aqbali maayo, soon laga aqbali maayo, wax cibaadaho laga aqbalayo ma jirto. qur-aanka qofkau u dacwoodane oo u shafeecane wixii ka dhacdhacayoo kalentood ee ilaahay subxaanahu wa tacaala weydiin maayo. waxaa kaloonu soo qaadanaynaa xadiis laga wariyey sayidinaa cali ibnu abi aalib radiallaahu canhu. xadiiskan isagana waxaa weeye xadiis oo maaragtay imaamu tirmidi wariyey. xoogaasa waxaa weeye xadiis oo qariiba weeye oo aan hadda isnaad saxiixa aan lahaynin, laakiin fadaa'ilul acmaal la ysaga qaada karo. waxau dhahay sayid cali rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qara'a alqur'aana qur-aanka qofka akhriya fastadharahu oo waxa weeye dusha ka akhriya qur-aanka xaafid ku noqda weeye fa axalla xalaalahu
xalaashiisa xallisho oo waxa uu xalaaleeyay xalaal ka dhig wa harrama xaraamahu waxa uu quraanku xarimane iska xarima adkhalahu Allahu aljannata ilaahi subhanahu wa ta'ala jannadu gelinaya wa shafa'ahu wa ana ugu shafeecaya fi 10 min ahli baytihi toban oo ahlu baytkiisa kamid ayaa loogu shafeecaya kulluhum qad wajabat lahum nar oo dhamaantood naar ay waajibtay maana hada hadiiskan waalidkii hadda laga soo waramay laakiin hadda wuxuu leeyahay toban ahlu baytkiisa ayaa loogu shafeecaya oo in markaas tobankaas ahlu baytkiisa u shafeeco ayaa markaas ilaahay subhanahu wa ta'ala u fasaxaya dadkaasoo haddana dad naar u waajibtay oo dambi naar waajibiya galay ayaa markaas waxa weeye u shafeecaya hadda marka waxa weeye quraanka inuu akhriyo oo haddana quraanka markaas oo daahirsada waxa laga waraa quraanka xaafid uu ku noqdo wixii quraanku oo xalila oo xalisho wixii quraanku oo xarimo waa quraanka ku amal falkiisa ay kamid tahay ilaahay jannada ayuu gelinayaa wuxuuna uu shafeecayaa toban ahlu baytkiisa oo dhamaantood naar u waajib xadiiska markaas imaam tirmidhi soo bixiya laakiin waa xadiis qariiba laysa lahu isnaadun saxiixun ay dhahay cumlad markaas xadiisiinta xadiis isnaad sanad saxiixa ma laha quraanka marka waxa weeye waa quraan aad u weyn oo mucadama quraanka waxa la rabaa in asaga farj lagu dalbo qofkii waxa weeye amuur ay ka cuslaato waa inuu quraanka farj oo ku dalbo xadiis oo markaas waxa weeye isaguna sanadkiisu xasan uu yahay oo laga wariyay Abu Hurayra jiro nabigu waxa uu dhahay alayhi salatu wasalam qala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam laysa minna man lam yataghanna bil qur'aani rasuulku waxa uu dhahay naga mid maahan ahlu hadigeen ahlu dariiqadeena kamid maahan man lam yataghanna bil qur'aani qur'aanka qofkan ku gabyin hada gabaygu maahan quraanka gabay amal in loo akhriyo quraanka lagu dheela ma waxa laga wadaa macna weyn oo xadiiskan iska leeyahay waxa jirtay carabta dadkii maaratay luqadatan iska lahaay jaahiliyadii iyo maaratay islaamkaba qofka markii waxa weeye dhibaato ay qabato waxay markaasi soo qaada jireen ilaahay ku bari jireen ama ay ku inshaadi jireen ama ay inshay jireen gabay oo markaasi xusnigiisa iyo dhibaatadiisa iyo in ilaahay faraj u furo oo ku cabiraayo gabaygaas oo samay jireen dadka hadda waa aragta gabya oo markaasi waxay markaasi ay gabaygaas ay alla ku bariyaan marka qaarkood waana la ajiibaa marka waxa weeye meeshii gabay ilaahay subhanahu wa ta'ala sida loo jeclaa jiro ay dadku u i'tiqaasanayeen inay haday gabay ilaahay ku tuugaan oo ku dan sheegtaan wax ku helayaan waxa markaas la rabaa quraanka inay markaas ay akhriyaan oo quraanka ilaahay ugu tawassulaan ayaa la rabaa marka nabi alayhi salatu wasalam man lam yataghanna bil qur'aan macna badan leedahay laakiin hadda baawil xadiisna ma joogno waxa weeye markaas qunadatan waxa kale lagu sheegaa quraanka qofka markaas qirada si fiican qurxan u akhriya oo markaas quraanka aan si wanaagsan u akhrin oo markaas xuruuftiisa aw shadkiisa wixiisa dhan maaratay aan ilaalin laysa minna illa la jeedo waxa kale oo markaas loola jeeda quraanka qofkan ku faraj dalbin waay meesha taasana hadda qaadanayna qofkan quraanka ku faraj dalbin oo faraj quraanka ku raadin naga mid ma haro rasuulka kaleey sallallahu alayhi wasallam marka waxa la rabaa quraanka in faraj lagu dalbo ayaa loo baahan yahay oo markii waxa weeye arrimo ay ka culus tahay quraanka ilaahay inaad akhriso si ilaahay subhanahu wa ta'ala usrigaas kaaga qaado ina quraanka saas u akhriso oo quraanka markaas ku faraj ku dalabto sidaas ayaa markaas loo baahan yahay naga mid ma hano rasuulku kaleey sallallahu alayhi wasallam oo qofkaas ahlu hadigeen ahlu dariiqadeena kamid maaha quraanka marka waxa weeye marna waxa weeye qiradiisa waa la siraystaa marna waa la jahraa intaasba waxa weeye markaas sida hadda markaas qofka xaaladiisu ay tahay ayaa markaas la fiirinayaa xadiis isaguna xasana laakiin qaraabana ay ku jirto oo waxa weeye laga wariyay Uqbata ibn Aamir radiyallahu anhu qaal wuxuu sami'tu rasuulallahi
إليه رسول كيسان مغلي صلى الله عليه وسلم يقول إساقو دهاي الجاهر بالقرآن قرآن كمدك الجهر آيه كالجاهر بالصدقة صدقة مثل الجهر آيه وكالوهي والمصر بالقرآن قرآن كمدك السرايساء وسوء أخرساينه كالمصر بالصدقة صدقة مثل سرايساء ولمديه واتود آيات القرآن كدي ألا يراوا كتقدينا سورة البقرة إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم صدقات هداد موجسان نعمة ويتاسو هدي أتقارسان oo dadka fuqarada asiisaan way idin khayr badanta marka quraanka waad aragteeno marna quraanka waa la jahraa ilaa quraanka dad markaad baraysana waad la jahraysaa oo laga maqla si looga faa'iideysto ayaad isleedahay marna quraanka qirada hoosaad u akhrisanaysaa marba si uu kugu soo maraya qiradu marka labada arimoodba waxa weeye qofka quraanka nabi waxa uu dhahay kaleey salaam al-jaahiru bil quraani quraanka midka la jahraaya كالجاهر بصدقة صدقة مثل الجهر ولا مديه صدقة waxaa la yiraahdaa aayadaas dii ilaa tafsiirkeeda ku tagi doona insha Allah haday sadaqadu sadaqa oo faral ay tahay si sikada oo kalentood waxa fiican markaas idoo lagu arkaayo inaad bixiso oo lagu jeedo si waxa weeye munaafiqnimo aan lagu tuhmaysanin dadkuna ay kuugu daydaan haday sadaqadu ay tadawu ay tahay oo aysan faral ahayn waxa khayr badan inaad qariso si qarsoodiye inaad ku dhiibtaa ku khayr badan oo lagu ogaanin oo lagu sheegin taasay ku khayr badanta marka qofka haduu quraanka la jahro waa qof sadaqa la jahraayo oo sadaqa dhiibaayo idoo la arkaayo qofka quraanka hoo wal musirru bil quraani quraanka midka siraysanayane kal musirru bis sadaqati midka sadaqada siraysana wala midii hadiiskaas waxa weeye Abu Daawud iyo Nasaa'i ayaa wariyay Imam Daarimi waa wariyay Tirmidhi waa wariyay xadiis oo maartay xasana weeye laakiin xoogaa qaraabaha ku jirta marka sidaas ayaa quraanka meel ka soo la fiisho quraanka Ilaahay meel ka soo la fiisho wax laga warrami kara maaha saasa la leeyahay marka waxaan soo qaadanaynaa xadiis kale oo isaguna xadiiskaas la xiriira waxa rasuulku kaleey salaam man qaama bi10 aayatin qofka u quma 10 aayadood mesela waxa weeye 10 aayadood wuxuu ku akhriyay faatixadu ku akhriyay salaada dhexdeedu ku akhriyay ama si kale u akhriyay lam yuktab min al-ghafilin dadka ghafiliinta ah oo dhikriga Ilaahay halmaansan diiwaankooda lagu qori maayo waman qaama bi 100 aayatin baqol aayadood qofka u qumane kutiba min al-qaanitiin waxa lagu qorayaa diiwaanka qaanitiinta mudiiciinta Ilaahay adeecay diiwaankooda lagu darayaa hadda qofku hadda inta uu quraan akhrinayo waxa weeye boqol aayadood iyo ka badan oo akhrinaya hadda uu 10 akhriyo waxa diiwaanka qaafiliinta ku maqora hadii marka waxa weeye oo boqol akhriyane qaanitiinta diiwaankooda lagu qorayaa waman qaama bi 1000 aayatin kun aayadood qofku u qumo istaaga kutiba min al muqaddirin waxa lagu qorayaa dadka markaasi Ilaahay subhanahu wa ta'ala u tawaaluca marka hadda aasaar fara badan ayaa maaratay quraanka ku soo aroortay hadiis aan la soo koobi karin oo quraanka markaasi waxa weeye ka hadlaysa maaratay falaa'isha uu iska leeyahay quraanka markaasi akhrintiisa la akhriyo iyo faa'iidada markaasi waxa weeye uu iska leeyahay oo wax la soo koobi kara aan ahayn marka hadda wax yar in la isaga ishaaro umbay noqonaysaa mooyaane quraanka ayaan markaasaan falaa'ishiisa ka waramaya ma ahan quraankan Ilaahay subhanahu wa ta'ala عظيم ayaa Ilaahay ku tilmaamay Ilaahay waxa uu cadama ku tilmaamane cid makhluuq oo ogaa karta ma jirto oo Ilaahay rasuulkiisa wuxuu yiri walaqad aataynaaka 7 min al-mathani wal-qur'an al-'azim la tamuddanna 'aynayka ila ma mata'na bihi azwajan minhum ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عدين إلى آخر الآيات بركة قرآنك إلهي رسولك يسحو كلها وحانو قصينا سيدك محمد كاهو 7 من المثاني تضبط لسوع العليو 7 المثاني ده سيدا مفسرين تقول وحاوية وفاتحة ليري فاتحة يا 7 المثاني ليري لأنها تصنى في كل ركعة محايلة ركعة كسالو سوع عليا
faatixada waxa weeye ragco kasta oo salaada faatixada waa la soo celinayaa 7 min almasani waana 7 aayadood khilaafka ku jira waa ku tagi doonaa haddii la yiraahdo basmalada iyo markaas basmala la'aante oo waxyaabaha haddaan faatixada gaarno aanu ka hadli doonay kamid tahay markaasi waa 7 min almasani ayaanu ku siinay waa hadda markaasi والقرآن العظيم وديا قرآن كي ويناي قرآن كهذا وين فاتحة كمد واي waxa loo khasisay waa waxyaabo khawaas gaar oo iska leedahay iyo iyadoo miftaahul kitaab ilaahi kitaabkiisa tii lagu furtay asraar badan ay ku jirto maaratay faatixadaas oo cajiiba weey hadee albaabkii laga galayay kitaabka ilaahay weyta ayay tahay haddana waxa loo doortay salaada markaas in ayada lagu akhriyo maxaa yeelay wax kala hadda lagu akhriyo quraankii asoo quraankii ay kamid tahay quraankina wala fadaa'il uu yahay wax kala hadda salaadi maaratay ku ansixi mayso wal quraan al aziim oo haddana ilaahay quraankii weynay ayaan ku siinay waxa mutafaq lagu yahay shay ilaahay haduu cadama ku tilmaamo ama kasra oo ku tilmaamo cid makhluuq oo markaas qaayadiisa ama waxa uu yahay ogaa karta ma jirto hatta waxa la yiri حتى الأنبياء والرسل والملائكة ما أوجا كرام حين القرآن كان إلهي وقرآن عجيب والقرآن العظيم قرآن وين أيان قصينه الإلهي هذا مرك قرآن كان مرك النبي السياس لوسية قرآن كالنبي اللي سيا أنا جننا لسيا ووحي رسولك عليه الصلاة والسلام يهدي النبي أيانه هاي سنة قفك قرآن كاللي سيانا أساقنا سيدا سو قرآن كدو معظم يهي قفك اللي سيا أسانا معظم أيون قنايا قف إلهي اكتيس كوين أيون قنايا محايا للشيء عظيمة وعند الله كوين أيوها يستا مركزا إلهي وحوده لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إنها أتاقنا الإلهي وحا أقرها حيني أصنافتاس كفارتا أو حقيرينتا waxaan ugu raaxayno adduunyaa ishaada uu taagi nasiib darada hadda nahaysa annagoo islaamka ilaahay na siiyay quraankiina la siiyay ayaan saas gaalada indhaha ugu haynaa ilaahay uu naga reebay rasuulkeena kaleey salaatu wasalaam khitaabku asaga ayuu ahay laakiin wal muraadu ghayruhu waay rasuulka kaleey salaatu wasalaam wax la siiyay makhluuq gaar ahaan kufaar wax la siiyay ishiisa u taagi ma waxa weeye asaga waa lagu la khitaabay مرادكنا وغيرك يسوي لا تمدن عينيك إلى معناها حيالي 7 من المثاني والقرآن العظيم أيان خصينا إلهي مركا قف وحاس هايسته عد إنو إيش أتاقمية لا قرآنك إلهي يولوسيي هداد وحكا لإناك أتاقته سيدا حديث أثر أو صار سيدنا أبو بكر الصديق أو لهي قفك مركز القرآن كاثل السيئ أو غيرك سؤارك وح أساق لسيئ وح كبضا إلا سيئ وحو حقيري وحوين مركزه حقيره أو مارته ويني قرآنك إلهي أيو حقيري يا قف مركو هذا الدنيا أو سيسنا أيو والدنيا دي مركز ماشي وكهلابا مركز مبدأ إيسو أو لجره تاسو حوي قف قرآنك إلهي حقيري واي مركز قرآنك سيد عسى أيانو هايسنا إلانو مارته أكو كافتون أيانو لوك يبهي مركز إن شاء الله تعالى قيبك وحانو كو قادة دونا 10 كينا دنبو صوص عده هذا 10 كين أفراد وفضائل القرآن انت سونه وإجهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.